Wacan oo wanaagsan daawadayaal. Maantay waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaalo cajiib ah oo ay libaaxa iyo doofaar duureedka ay isku fara saareen. Daawasho wacan. Number 3. Libaaxan ayaa gadaal uu kaga yimid doofaarkii, halkaasi oo uu miciyihiisa ka taagay, taasi oo keentay in doofaarkii uu awoodi waayo inuu u dulqaato, isla markaasna ay keentay in uu isku dhiibo libaaxii. Libaaxii ayaa ka qabtay doofaarkii dhuunta si aysan ugu suurtagelin in uu hawo qaato. Doofaar duureedyada ayaa alaaba qota godad ay kaga dhuuntaan xayawaanaha kale ee halista ku ah jiritaankooda. Libaaxyadana sidaas si la mid ah ayaa waxa ay barteen meelaha ay galaan doofaarada. Libaaxan aynu arkayno waxa uu faagayaa godkii uu ku dhuuntay doofaarkii, ilaa uu ku qasbay in uu doofaarkii xagga sare u soo baxo. Durbadiiba libaaxii ayaa ku dhagay doofaarkii. Doofaarkii ayaa isku dayayo in uu ka baxsado miciyaha adag ee libaaxa. Libaaxu waa noole aanan raqda cunin, halka dhurwayga uusan dayn waxba, xitaa uu cuno noolaha inta uusan dhiman. Waxaynu arkaynaa in dhurwaygii uu goosanayo hilbaha doofaarkii isaga oo nool. Libaaxii ayaa bilaabay in uu iska qabto dhurwaygii. Raxdan libaaxyada ah ayaa waxay isku dayayaan in ay doofaarka ka soo saaraan godka uu ku jiro. Qorshahoodana wuxuu noqday mid guulaysto. Doofaarkii ayaa is yiri xoog ku dardar, laakiin way u suurtagal weysay. Doofaarkii iyo libaaxii waxay bilaabeen in ay lisla hardamaan. Hardan dheer kadib, libaaxii waxaa u suurta gashay in uu cunaha qabto doofaarkii, taasi oo keentay in uu doofaarkii isdhiibo. Muuqaalkanna waxaynu arkaynaa libaaxa oo dul taagan afka godka doofaar duureedka. Doofaarkii ayaa is yiri soo bax, laakiin wuxuu ku soo baxay afka libaaxa. Doofaarkii ayaa bilaabay in uu hardamo si uu naftiisa u badbaadiyo, laakiin libaaxii ayaa meel halis ah ka qabtay.
laakiin libaaxii ayaa hunguriga ka qabtay meeshaasoo ah meel halis ah. mawduuca aan idin sido daawade muuqaalkeena halkan ayuu ku eg yahay.